runtii wasaaradda kale la geeyay inaanu saaxiib nahay kullay macallin aanu ahaa oo Cabdilaahi Dheere ayaa kullay halkaan aan isku taray waxaan la moodinaa ka weynahay jaamacadda Hargeysa macallin ugu ahaa oo waxaan ahay kullay macallimiinta jaamacadda Hargeysa sad partnerka wax uga dhigay amiin irregularka wax uga dhiga aan macallimiinta joogtada ahayn waxa kullay marka aan halkan ka bacdi inta u gudbaya oo wasiirada cusub ugu bishaareynaya kullay wax qabadkii ugu badnaa iyo wasaaradda shaqadeedu waxa ahayd iyo wixii qabsoomay iyo wixii la rabay inay qabtaan intaba waxa xusay kullay agaasimaha guud ee wasaaradda oo runtii anagana si fiican noola shaqeeyay aadna noo gacan qabtay tilmaamo badanna nala garab taagnaa runtiina qof u dhashay inuu wada tashi sameeyo oo adduunyada waxa ugu qaalisan dadku haday wada shaqeynayaan wax wada tashi lahayn ama tala wadaag aanu jirin waxay imanaya dhibaatooyin badan iyo khaladaad badan oo dhici kara runtii haddii la moodo in agaasimaha guud runtii culays badan oo baaxadda shaqadu leedahay iyo baahida iyo waxa yaalla oo kala badan baa mararka qaarkood qofku dembi aanu lahayn dhakada ka saari karta oo isagoo mas'uul aanu wax badan sida tahay u xusi karin oo ay keenaysaa mas'uuliyaddu inuu hoos u hayo isagoo canaanta qaato isagoo qofku sabab runtii sida la xusay wasaaraddu 5 waaxood bay ka kooban tahay oo taa waxba dib ugu noqon maayo laakiin qodobada aan ku daray waxa kamid ah gaar ahaan anigoo aad ula shaqeynay waaxda dhalinyarada waxaanu ku guuleysanay inaanu la xiriirno oo kulli xiriirkeedii iyo warbixinteedii bay idin haynaysan cumar ku wareejin doona email-adeeda xafiiska u qaabilsan arrimaha dhalinyarada xafiiska ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dhalinyarada xafiiskiisa Nairobi oo la yiraahdo Axmed Albardaawi waa ergeyga dunida dhan ugu qaabilsan qaramada midoobay markay timaado arrimaha dhalinyarada waayo qaramada midoobay marnaba si toos uga maynaan wada shaqeyn ama wax taageero oo toos ka maynaan helin markay timaado arrimaha dhalinyarada waxa ay 3 bilood ka hor inay noo yimaado 2 qof oo ugu tala galay inay sameeyaan qiimeyn wasaaradda waaxda dhalinyarada si ay wixii taageero ama wada shaqeyn loo abuuri kari lahaa laakiin macalaasaf may suura galin waxay sababtay inay markaa dib u dhac ku yara yimaado imika laakiin kulli emailkii aan ka helay 2 week hor waa u diyaar waxay naga sugayaan inay invitationkii aad u dirtaan midna ay markaa yimaadaan oo halka ay kala shaqeeyaan taas waa qodob waaxdaasi kulli ay kamid ahay waxa kale oo aan ku darayaa oo iyadoo qabiyo qoraal kulli ay taala waxa ciyaaraha su'aal baa ka taala hadii jeer ciyaaruhu ummad walba inta ilbaxnimadeedu gaarsiisan tahay bay gaarsiisan yihiin haddii ummadda ilbaxnimadeedu aad u yar tahay dhibaatada ciyaaraha ka timaadaan way badanaysaa runtii waxaan ahaa mas'uulkii wasaaradda u sarreeyay markii qaybta awdal wax lagu qabanayay agaasima waaxidada iyo xiriirku bay nala socdeen shaqo adag bay ahayd annagoo runtii aad uga xumayn oo dee ilaahayna uga bareeray naxariistii jirno labadii wiile ku dhintay intii ciyaaruhu gobolka awdal ka socdeen taasina runtii aanu marinay family ka baxeen oo runtii aad uga xunnahay haddana laakiin ciyaarahaas intii ka dambeysay inta guul bay ku dhamaadeen waxay saxaafaddu baryahanba kulli isweydiinaysay oo ahayd in la soo saaro maxaa lala qabanayaa ciyaaraha qaybtii dambe ee loo bilaabi laayay markii kulli tashi ballaaran maalintii Axmed Xilki ka tagay aanu galnay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo aniga iyo wasiiro kale oo uu saaray inaanu soo qiimeyno sidii loo bilaabi lahaa ciyaaraha qaybta harsan markaan qiimeyn sameeynay waxaan ogaanay inay ciyaartooyada waqti badan kaga lumay maadaama ciyaaraha aanu qabanay oo halka kulli khalad technical naga dhacay waqti iskuuladu ay socdeen agaasimaha guud iyo wasiirada cusub ee wasaaradana waxa aan kulli soo jeedin iyo talo ku siinayna ciyaaraha gobolada in laga dhigo xilliga fasaxa iskuulada lagu jiro maadaama iskuuladii socdaan baan dib u dhignay ciyaarihii inaan la furin waxaana la qaban doonaa walow go'aankeeda kama dambaysta wasiirkii wasiir-ku-xigeenkii agaasimaha guud yeelan doonaan ama wasiirku ku hogaamin doono laakiin qorshaha sida aan anagu sii dhigno wuxuu ahaa in la qabto fasaxa yar ee iskuulada oo ku beegan bisha koowaad bana khaldanayn laga fasaxa yar ee iskuulada ayaa la qabanaya koobka intii ka harsanay qaabka iyo nidaamka loo qabanayana waa wax kulli idin yaala waxa iyaduna aad u muhiim ah oo aan rabaa inaan xuso oo qabiyo qoraal ah
oo u baahan in la dhammaystiro siyaasadda guud ee ciyaaraha qaranka waaxda dhalinyarada siyaasadeedu way diyaarsan tahay laba waaxood baan siyaasadoodu aanay diyaarsanayn way diyaarsan u baahan in la dhammaystiro waax barbilow baa laga bilaabayaa laftigeeda barbilow maaha laakiin la dhammaystiro u baahanto waa waaxda dalxiiska iyo waaxda ciyaaraha haddaan national policy of sports iyo national policy of tourism aan la helin suuragal noqon maysa labadaa waaxood inay gaadhaan halkii la rabay waayo siyaasaddaas waxayna siinaysaa jihada iyo waxaynu u baahannahay inaynu qabanno wixii aan suurtagalan kulley anigu iyo tiimka iyagu aanu xariiqnay ama aanu qorqornay waaxaha yaallaan dhammaystirkeedana waa wax laynu sugaya inaynu iska dhammaystirno waxaa kaloo iyaduna jirta oo runtii waaxda qorshaynta iyo xidhiirka ay soo saartay amaba aanu ogaanay in wasaaradda qorshayntu ay qabato shirar ay wasaaradaha iyo dadka la shaqeeya bartneriska ahi ay had iyo jeer ku kulmaan 3 biloodkiiba mar ama bishiiba mar oo la yiraahdo sector coordination meetings sector coordination meetingska waxa garwadeenka wasaaradda qorshaynta wasaaraddan waxay nasiib u heshay inay 3 shir waajib ku tahay inay gasho waliba iyadu jeer gareyso nasiib darrase laakiin marna noomay suuro gelin inaanu ka qayb galno oo aanu shirarka waajibaadkii naga saarnaa fulino waa wax qabyo ah oo yaala tourismku qaybta dhaqaalaha ka qayb galayaan ciyaaruhuna qaybta dalxiiska qaybta dintada waxaan doob arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha way ka qayb galayaan waaxda dhalinyarada laftigeeduna waxa iyadana laba shir bay ku leedahay oo ah ta waaxda arrimaha bulshada ku leedahay saddexda shirba jadwalkooda iyo waqtiyada la galo iyo saacadaha la galo iyo goorta la galaaba waaxda qorshaynta yaala waxaana national sector meetings waa shirar aan runtii qabo hadii wasiirad kulli xil iska saartaan oo agaasimo waaxdada aad ugu dirqiyay inay ku darsadaan jadwaladooda waa shirar mina dhal u noqon kara wasaaradda waayo shirarka waxa yimaada dadka arrimaha ka shaqeeya ee khuseeya ama hay'adaha caalamiga ah noqdaan ama kuwa wadaniga